أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan mahad celinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka labaadna waxaan mahad celinaa walaalaha muxsiniinta maanta kulay bishii December 17keedii anagu joogna xilli ay ku jirno bishii December oo ahayd bisha ugu qabow sanadka oo dhan dalka gudihiisa ugu soo deeqay dadka ma garanaysaa jilicsan ee xanuunsanaya dadka dhibirka xanuunsanaya bustayaasha dhaxanta khaasatan walaalka reer Soomaaliland ugu soo deeqay walaalahaas aad soo taag ma garanaysaa taakuleeyay waan uga mahad celinaa waxaan fariin qadarnaa bulshada ku hadasha afka Soomaaliga gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan waxaan leenahay kulli ina ku dayataan oo ku dayasho fiican sameeysan insha Allah waqtiyada ay u baahan yihiin dadkeena jilicsan ay baahida ay qabaan in ma garanaysaa garab istaago hadda bishan ku jirna waa bishii December waa xilligii dhaxantii iyo qabowgu jiray walaalkaasi waxa uu ka damqaday dadka walaalaheena inuu ma garanaysaa soo taageero oo ma garanaysaa waawiyo saadarteed baan ma garanaysaa maanta annaguna aan u soo gaarsiinay annagoo ugu soo hagaajiyay khayriga Somaliland Mental Health Support Organization xafiiskeedii Boorama maanta aanu gaarsiinay dadkii insha Allah intii ay ka gaadhaysay waan gaarsiinay waxaan aan leenahay kulay dadkaasi waa aan anagu u adeegnaa dadka maskaxda iyo maanka ka xanuunsan ama la nool xanuunka maanka iyo maskaxda marka waxaan leenahay insha Allah dadka ay walaalaheena muxsiniinta khaasatan bulshada reer Boorama waxaan faranahay inay magaranaysaa taakuleeyaan walaalaheen ay soo garab istaagaan insha Allah Ilaahay ka dhigo si walaalnimo iyo magaranaysaa dadnimo iyo leh taasina waxay kale ay noo sahli doontaa in magaranaysaa aynu dadkeena waqti kasta u baahan yihiin garab istaag